xabsiga Zaydnaya waa meel loo diiwaangeliyey xabsiyada ugu xun adduunka. waa meel dad badan lagu dhibaateeyey ilaa haddana dad badan lagu laayay. xabsiga Zaydnaya qaarkood kama warqabin markii la soo daayey in xukunka uu haysto madaxweynihii hore u haysan jiray dalka ee Xaafid al-Asad. mayse ka warqabin inuu haysto xukunka wiilkiisa Bashaar al-Asad, bal dadka qaar ayaa waxay u haysteenba inuu Saddam Hussein uu soo daayey uu nool yahay. waa dad laga qariyey. haddaba waxaan noo soo qabanayaa qisadii ugu xanuunka kululeed xabsiga Zaydnaya. waxaan noo soo qaban doonaa qisadii iyo dhacdadii ugu murugada iyo xanuunka badneed abid soo marta. qisadani waxay ku dhacday oo ay qabsatay wiilkan wariyaha ah oo magaciisa lagu magacaabo Maazim Xamaada, kaasoo jirdil iyo dhibaato aad fara badan loogu geystay xabsiga, aakhirkiina uu ku geeriyooday. haddaba intaanan qisadiisa idii horlicin, waraysi yar uu bixiyey markii uu dibadda tegey ayaan idii sii deynayaa. annagoo fadhina kadibna shaax iska cabayna oo aniga asxaabteedu kaftamayna oo qoslayna ayaa waxaa noo yimid askar. markiiba madaxa ayay wax noo geliyeen. aniga gaadhiga xaggiisa dambe igu rideen, kadib meeshii rabeen ayayna keeneen. anigu waxay keliyan hor weydiiyey wuxuu ahaa halkeebaan joognaa. madaarka ayaan ku keennay. saasaa rabtaa miyaa? qaybta sirdoonka ayaa lay keenay. indhaha layga xidhay, gacmahana garbadub ayaa layga xidhay. qol gaara ayay geeyeen, kadibna jilbahay dhulka i dhigeen, gacmahana saasaa laygu xidhay. waxay ku dhaheen magacaa Maazin Xamaada. ayaan ku dhahay annaa. maxaad samaynaysay bay gu dhaheen. waxaan ku dhahay mudaharaadka ayaan ku jiray. mudaharaadka iyo waxaasaan ku jiray, yacni mudaharaadka iyo duubitaan iyo wararka sidaas micnaha wariya ayaan ahay. kadibna saasaa madaxa laygu lahay. waxaana laygu yidhi weli maad qiran adigu, wax kale ayaad iska sheegaysaa. waxaan ku dhahay anigu wax kale maan samayn. kadib wuxuu igu yidhi hubkaad isticmaalaysa nuuceebuu ahaana? anna waxaan ku yidhi kamarad ayuu ahaa. ma intaasun? weliba tooshiba ayay ahayd. anigu ma qaato hubka ayaan ku yidhi, mana jecli hubka qaadashadiisa. markaasuu igu yidhi adu ma rabtid inaad qirato, ii kaxeeya ayuu yidhi. way kaxeeyeen, dhulka ayay ii seexiyeen. beedhahayga ayaa jajabay. weliba anigoo dareemaya kor ayuu boodaan way igu soo degaan, kadibna feedhahayga ayaan ka dareemaa dhacdhacdhacdhacdhac. anoo arkaya ayay jajabayeen. markaasa haddana dhinaca midig ayaa lii seexiyaa, marna dhinac dhabarka ayaa lii rogaa. kadibna way igu dulbadboodaan. wejiga ayay feedhiga ka dhuftaan, kab bay ila dhacaan, ulna way igu dhuftaan. kadibna markaasa waxay igu dhahaan adigu ma rabtid weli inaad runta sheegto, waxaan doonaynaa inaad qirato. haddaad qiran weydo waan ku dilaynaa. anu waan idii sheegay wixii aan sameeyey. mar labaad haddana waxay keeneen inay xidhaan, gacanteedana katiinadda ku xidhaan, tan kalena katiinadda ku xidhaan. daaqadda ayay ku xidheen. sida weliba kor bay iga qaadeen lugaha ilaa 40 senti in gaadhaysa. katiinadiina gacmahaygay ku xidhan yihiin. katiinaddu markay gacmaha ku xidhan tahay waxaad dareemaysaa inay gacmuhu ku go'ayaan oo kale marka kor lagugu qaado. kadib waad qaylinaysaa. markaasaa kabo amba sharabaado wuxuunbaa afka lagu gelinayaa. wax lagu leeyahay afka kala fur, ma rabo codkaaga qaylidiisa ina maqlo. kadib haddana waxaa lay oranayaa waxba qiran maysa soo maaha. waxaa laygu soo celinayaa haddana qolkii. haddana waxba qiran maysa soo maaha, qasab ayaad ku qiran doon. sanduuq ayay keeneen ay ku jiraan qalabkii korontadu. kadibna maryaha ayay kaa saarayaan, sidii ilaahay ku abuuray ayay kaa dhigayaan. kadib waxay kaaga qabanayaan xiniyaha, xagga dambana bir ayay kaa soo gelinayaan. waxaad moodaysaa naftu inay kaa baxayso. yacni run ahaantii dilitaanka saas aqliga ibni aadamku ma malaysan karayo sida yacni ku jir dilayaan. dad badan ayaa ku dhintay. dadkaa dhibkaa ku geystay maxaa ku samayn lahayd?
ayay ka war heshay xukuumaddu waraysigan uu bixiyey iyo sirahan faraha badan leh uu ka fashiliyey. waxay ka codsatay dowladdaasi in uu dalka dib ugu soo noqdo. maazim waa uu ka diiday. kadibna faamilkiisii ayay soo qabteen, waxayna u sheegeen maazim in ay faamilkiisa dili doonaan haddii uu ku soo noqon waayo dalka. waxayna dhaheen haddaad soo noqoto waanan ku saamaxaynaa, muuqaaladana dib ayaad u beeneen doontaa. kadib maazim isagoo u damqanaya ehelkiisa ayuu ku soo noqday dalka suuriya. way qabteen, way xidheen, ugu dambayntiina way dileen. ilaahay ha u naxariisto ayaan leenahay isaga iyo dhammaanba intii ku shahiiday xabsigaas sayid naaya. run ahaantii waa dhacdo aad u muruga badan una xanuun kul.